yahay waxa lagu haystaa taariikh Soomaalida laga xaday ee la qabaystay ayuu soo faagay oo soo bandhigay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtaan halkan waa Xursha TV. Saaxiibayaal qodobada aan caawa idigu hayna waxaa ka mid ah Dr. Adna Aadan oo habeenkii Israa'iil laadka lagu dhuftay oo Abuukar Baale oo hawada ka qabsadayba dhammaan Soomaaliland waxyaabihii dhoobtay meeshii ay ku suuxday inay weli kooma ku jirto hospital weyn oo ku yaala dalkaas Jarmalkana ay ku jirto ayaa la soo warinaya. waxa kaloo laga soo sheegayaa isla gobolkaas waa aagaas Soomaaliland la magac baxay. waxa laga soo sheegayaa culimada aan anagu raadinayno ee aynu leenahay maxay uga aamuseen Yuhuudda iyo heshiiska lala galay ee aan caasinayno culimada waaweyn ee ka mid ka tahay. waxa la inoo sheegayaa habeenka WhatsApp kaalka laga intiraafay nimankaas godkii lagu riday weli inay ku jiraan oo aysan xorriyad bahaysanba nimanka aan caasinayno anagu aan ka been abuuranayna aynu leenahay raalli bay ka yihiin xorriyadba ma haystaan god ayay ku jiraan. labada qodob waxaan idin haynaa gaygaas la magac baxay Soomaaliland. waxa kaloo caawa saaxiibayaal idin haya miiska inoo saaran YouTuberka weyn ee caanka ah Afrikaanka u dhashay laakiin dalka Mareykanka dhalashada ka haysta ee liira Show Speed. saaxiibayaal waxay jirtay safar uu ku yimid wadamadan Afrika intooda badan oo safar uu ku maray dalxiis ah wuxuu ka soo dhacay dalkaasi Kenya iyada oo madaxtooyada uu ku qaabilay waliba madaxweynaha dalka Kenya oo si fiican u soo dhaweeyna oo maamusay. waa YouTuberkaas caanka ahaa ka bacdina uu soo dhigay dhankan Ethiopia isaga si fiican loogu soo dhaweeyay qowmiyadaha kala duwan ee Ethiopia degan oo midba gobolka ay degan yihiin oo ku booqday. haddaba saaxiibayaal ninkii odaga ahay waa lagu dhagan yahay waxa lagu haystaa taariikh Soomaalida laga xaday ee la qabaystay ayuu soo faagay oo soo bandhigay. sidaa daraadeed YouTuberro waaweyn oo caalamiya iyo Israa'iil iyo Ethiopia oo iskaashanaya ayaa hawada ka haysta ninka. wuxuu qatar ku jiraa inuu ka xirmo janalka weyn ee dhowrka 100 milyan ay ku xiran tahay maadaama streak lala daba galay dad caan ah oo dul saariha dawladda ay dul hoganayaan oo maaragtay la cadaadis xoog la lagu hayo maadaama uu taariikh la qarinayo dadka Soomaaliyeed iyo dalkoodana laga xaday uu soo bandhigi rabay sida la sheegay sawirro hore u dhacaba uu soo daayay. saaxiibayaal arrimahaas iyo wixii ka soo kordhanay waa halkan iyo Xursha TV.